booliskani oo doonaya inay dhacaan goob ganacsi ay Soomaali leedahay ayaa lagu qabtay xaafadda Soomaalida ay ka degan tahay magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika waxaana Soomaalidii goobta ku sugnayd xiriir la sameeyeen xarunta booliska ee xaafadda laga xukumo kadibna markii ay soo gaareen booliska waraysi ay la yeesheen booliskii doonayay inay lacago iyo alaabo ay ka qaataan goobta kadibna la ogaaday inay ku jiraan kuwa aan boolis ahayn kuwa oo qaarkood markii dambe la xirxiray waxaana goobta si aad ah u soo buux dhaafiyay ciidamo boolis iyo ganacsato Soomaalida ee ku nool xaafadda Mayfair ee magaalada tani Johannesburg haddaba qaar ka mid ah goobjoogayaal goobta ku sugnaa oo la hadlay warbaahinta ayaa sharaxaya sida ay wax u dhaceen waxa hadeen oo ah maysan macnaha dadka area degan ilaa 35 kilomitir ay ka imaadeen وانا سان هوري وشيغا اخبار bay ku safreen marka nimantu waxay iska ayaan wax dhaca Soomaalida boobkeeda u bartay marka ka Soomaali ahaan waxaan leenahay aan ka hortagna arrintan oo kale maanta arrin weyn baa dhacday aad fiicneed oo aan nimanka in la qabtay lawadana xiray dhamaan jeel ku jiraan hadda shaqana kuma leh mid kale nimanku ma ah niman qaar booliis kuma aysan jirin niman ritaaya qaato sharci wadina qaar kamid ah rabka wax dhacay ayaga waxa la Mustafa Maxamed Axmed nimanka tuugay haayeen afar baawur buu wateen meesha xog ku soo galeen meeshii hore way xireen meeshii joogay airtel kaatiyo oo coodinayay laba dul u xireen lacag meesha talana warsadeen kabacdi Soomaalida ogaatay Soomaalida ayaa meesha baawur ku xidhay looyarkii baa la dalbaday oo ay ku yimid booliska ma hadlay sidaas hawshii adigu ay ku qabatay iyagina waa la xidhay sidaas ay ku dhacday si kastaba ha ahaatee ma ahan markii ugu horeysay booliska dalkani Koonfur Afrika ay dhac ka geystaan goobo ganacsi ay Soomaalidu ku leeyihiin dalkani Koonfur Afrika Maxamed Xasan Ibrahim Madka TV-ga caalamiga ee Somali Channel Koonfur Afrika